وهجاج داوديال هاتنا warbixin ka duwan warbixinadii hore cabdisalaan ashkir waxa uu ka mid yahay qurba joogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay waxa uu daryeel casri ah u fidiyay bisada curyaan ahayd isla mar ahaantaana ku nool magaalada Muqdisho haddaba warbixintaas iyo qaabka casriga ah ee bisadaasi curyaanka ah loola tacaalay nolosheeda waxaa noo eegay wariyeena Maxamed Cabdi Biriye bisad curyaana ku nool Muqdisho kuna socota luga macmal ah tani waa nasiib u gaara bisadan oo qaar ka tabajiideysay ka hor inta aysan caawinaad helin bisadaas waxaan ku arkay iyadoo maraysa iyadoo yar aad u yar runtii oo tarbuunka jid isgoyska tarbuunka naf gaajo aad u hayso haddana aan lugaha dhanbay ka jaban tahay waxba marka ayuu jidka jiitamayso qorraxdu hayso waa Cabdisalaan Ashkir isaga ayaa ku guuleystay in bisadan uu jidka ka soo qaado kadibna sidan u xanaaneeyay marka anoo meesha marayaan arkay waa soo qaaday gurigaanaan keenay hadda joogto oo anigu soo guuray laakiin guriga hadda shamiitaan ka dhignay marka waxay keentay shamiitada saysan jilbaha isaga xoqin sibirka badanaa jilbaha iyo luguhu ka dirdiiraya inaan qof soo baxay dibadda ka imaanaya dhaho gaari yar oo curyaaminta loogu talagalay bisadaha curyaaminta oo soo qaad si aysan lugaha uga hoolmin sababta maalmihii blowga intaysan haysan inaan meel ku xirnay noqoto sababta badana shamiitada isku jiidaysa dhogorti dhanba yaa ka maruxday marka bisada waxaan ka helay actually meeshaas markii horena aan arkayeen waxaan islahaa dhibteeda way yar tahay oo isla laba bir markaad qoodayso oo iska tagi doonta oo lugaheeda u fiicnaan doono ayada qaraabsho tagi doonta laakiin waxaan arkay inay paralyzed tahay inta dambe paralyzed ka tahay marka waxaan bisadaha kala qabayna la qaban halkan ammaan ku tahay ay ku nooshahay qoyska ka mid tahay aniga meeshan guriga joogta alxamdulillah waxay ka mid tahay noolayaasha ilaahay ku irsaaqay halkan oo bisadan oo kaliya ma aha Ashkir waxa uu caawiyaa noolayaasha kale ee la dariska bisadaha iyo xayawaanka kala duwan oo ku nool agaaradeeda deegaanka guriga ayaan badanaa xanaanaya waxaana siiyaa wixii macnaha aan awood ahaan markaas aan hayo marka yaan bisada kaliya ma hayo iyo shimbiro wixii xayawaan oo agaaradeeda badanaa joogaan runtii isku daya inaan waqti yar siiyo maalintii si baahi badan baa hayso aad u badan oo ma sheegan karaan inta badan marka weedana way yimaadaan doorarkan ka soo baxaan guriga agtiisa meeshan isugu yimaadaan marka wax siiyaan way kala tagaan badana ama shimbir ha noqoto ama ay ha noqdo ma kala jecel runtii wax kasto oo nafla oo u baahan daryeel waa intaan awoodaan gaarsiiyaan insha Allah Cabdisalaan Ashkir waxa uu ku baqayaa in la ilaaliyo xuquuqda xayawaanka kuwada bukana la daweeyo aniga halkan shaqaan u imid dadka dalka ku soo noqday oo isku dayay dalka inay wax u qaban karaan qabtaan ba ku jira gaarkiisa u shaqeysta waqtiga badankiisa nolosheeda ka dib laakiin waqti yar oo ii saaran jecelahay inaan ku qarash gareeyo in la sameeyo waliba Soomaaliya aan kula talin lahaa in la sameeyo shelter meel xayawaanka lagu xareeyo oo kuwa jaban iyo kuwa dhaawacan iyo lagu daaweeyo wadan kasta wuxuu leeyahay meelo badan magaaladan oo kale oo Muqdisho waxay ahayd inay yeelato ilaa iyo 10 meelood 20 meelood inay yeelato oo loogu talagalay haddii xayawaan hadda ka soo qaad dameer badan magaalada ka dhex shaqeeya haddii shil u mid galo oo luka jabo waxa kaliya loo awood waxa waa inuu dhimasho silaca dhinto sacaba maalin kasta baabuur dardara jidka dhinaciisa fariistaan lug baa arkaysaa mid kala jaban tahay oo kala laalaado haddii meel shelter jiro waxay ahayd in meesha la geeyo dhinacyada laga geliyo alwaaxyo la duubo cunno la siiyo markuu istaago marka waa isku xiran tahay horumarka bulshada aan gaarinay horumarka naxariista xayawaanka bulsho aan naxariisan ilaa alla uma naxariisto marka waa ku faraxsan waxaan insha Allah ku rajoonahay haddaan dalkan sii joogo in aan sameeyno hay'ad xayawaanka u dooda xuquuqdiisa caruurta waliba dhinaca baraaruga ugu daran dhinaca waxtarka kaliya ma daawo iyo cunno iyo kaliya ma wacyigeena inaan bedelno oo la hay'ad dadka caruurta waliba iskuulada iyo tagta oo naxariis darada xayawaanka lagu dhaqmayo waliba eeyada Soomaaliya lagu dhaqmayo wax ka qabata hadda bisadani waa deegaan waxa ay leedahay hooy u gaar ah oo bisadaha kale ka duwan halkan ayayna sii joogi doonaan bisadahan Maxamed Cabdi Biriye dalka TV Muqdisho